komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa kormeer xogogaal u noqoshaha ku soo maray badiba deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer sida habsamida leh ee deegaanadaasi bulshada ku sugan kaarka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland uga qaadanayaan waxaana ka warbixiyay kormeerkaas mas'uuliyiinta ugu sareysa komishanka doorashooyinka qaranka waxaanu joognaa Qorulugud goobtii B baanu joognaa waxaanu wada joognaa noo yimi komishankii guud heer qaran iyo heer gobol oo kormeer ilaa shalayba ku jiray iyo shaqo oo halkan isugu yimi oo laba qaybood ka kala yimi gudoomiyihii komishanka qaranka oo ka yimi Cayn iyo gobolada xaggan Saraar iyo Cayn ka yimi iyo komishineer Maxamuud Daahir iyo gudoomiyihii komishanka gobolka Farxaan Maxamed Cilmi oo ka yimi iyaguna shalay too baxay galbeed oo xuduudka soo maray degmadaanu isugu nimi anigoo gudoomiyihii degmada Buuhoodla ee komishanka Cali Dhimbiilaadan si fiican bay hawshu noogu socotaa nabadgelyo deegaamadan waa deegaamadii dadku ka guuray abaarta ahaa goobihii intii shaqeynaysay degmada Buuhoodle si fiican bay u shaqeynayaan intii sanaaduuqda la dhigay ee shaqeynaysay marka deegaamadan Qorlugud Coodanle Balle Calanle Muraayada Qabri Hulul Carra Balanbaal deegaamada bariga Buuhoodle oo Woodwood Balle Cad Geeddheer Qorfabuul Dhooba Guduud Banyaal si fiican bay goobaha oo dhan shaqadii uga socotaa waxa dadku ku badan yahay goobaha Woodwood area iyo Balle Cad bay aad ugu badan yihiin marka alxamdulillah si fiican bay shaqadii u socotaa si fiican bay u socotaa komishineerka heer qaran iyo heer gobol waxaan leenahay shaqadii degmada ee aad noo timaadeen sidaa fiican bay u socotaa idinkana kormeerkiina iyo tala bixintiina iyo wixii aad baan idinku soo dhaweynaa degmada iyo shaqada haysaanba safarkan shalay soo bilownay wuxuu ahaa safar aad u dheer waanu ku marnay degmooyinka Oodweyne degmada Burco iyo degmada Buuhoodle runtii si nabadgelyo leh oo aad u qurux badan oo aad u qiimo badan ayaanu ku soo arnay goobihii aanu soo marnay ee ay ka socotay diiwaangelinta codbixiyuhu dadkuna si fiican oo habsamiya ayay isu diiwaangelinayeen dhammaan agabka iyo qalabka ku shaqeynayaana wuxuu ahaa qalab sidii loogu talagalay u shaqeynaya maanu arag wax cilada oo goobaha aanu soo marnay ay ka cabanayaan aad baanu markaa ugu mahadnaqaynaa dhammaan shaqaalaha komishanka qaranka ee goobaha jooga dadweynaha gobolka Togdheer meel kasta joogaan waxaan ugu baaqanaa inay ka faa'iideystaan muddada kooban ee hadhay waqtiga loo qoondeeyay diiwaangelinta codbixiyaha gobolka Togdheer oo ku eg 30 bisha inay saacadaha iyo maalmaha u hadhay ay ka faa'iideystaan degmada Oodweyne oo aanu ku soo wada wareegnay dhammaan goobihii sanaaduuqdu taallay oo ay ka bilaabmaysay degmada Oodweyne ilaa xuduudka daba gorayaale ilaa Coodanle oo Buuhoodle ka tirsan dhammaan intaas oo dhan waanu soo marnay kormeer baanu ahayn ballaaran habeen iyo maalinba waanu soconayn shaqaalaha iyo bulshaweynta gobolka Togdheer dhammaantood waxaan doonayaa in halka uga mahad celiyo siday heeganka ugu yihiin isdiiwaangelinta safar hawleed baanu ku maraynay deegaamadan iyo inaanu indhayno bal sida ay diiwaangelintu u socoto iyo arrimaha nabadgelyada aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay runtii intii aanu soo maray sida ay uga socoto diiwaangelintu waxa qura aan doonayo anigu komishineerada dhameeyo warka waxa qura aan doonayaa in aan ka jeediyo waa baaq aan u jeedinayo dhammaan bulshada reer Togdheer ama gobolka Togdheer Saraar Ceelaf Weyn iyo Garadag oo ay diiwaangelintu hadda si toos ah uga socoto
waxaanu leenahay waxaa runtii soo baxaysa in dadka ku noqnoqonaya ee kaadhadhkooda gubaya ay gobolkan ku badan yihiin dadka qaarna badheedh bay u samaynayaan markii aanu xaqiijinnay qaarkoodna waxa runtii ka luntay ama ay ilaaween inay horu galeen sida ay noo sheegayaan marka waxaanu leenahay kaadhkan la qaatay ama diiwaangelintan la gelayo qof waliba ha ogaado markaannu indhihiisa qaadno indhihiisii waa haysannaa ismana qarin kartid beenna ma sheegi kartid hore uma gelinna nama odhan kartid markaa dhammaan waxaannu ugu baaqaynaa in la joojiyo dad kale hore umaanu gelin iyagoo is-og oo hore isu diiwaan geliyey in loo tudho dhallinyarada qiimaha badan ee u shaqaynaysa ummadda aan wakhtigooda lagu cayaarin cabdiqani baafe star t v magaalada burco.